In ka badan 1,000 qof oo shacab ah oo ku geeriyooday dagaalka ka socda Itoobiya iyo qaxootiga naftooda la baxsanaya oo door biday Suudaan. Walaal Saar aragtidaada ka dhiibo oo sheergaree si uu u gaaro muuqaalkan saaxiibo badan oo nagu helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale mahadsanid. Waxaa toddobaadkii labaad oo xiriira dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanada waqooyi ee Tigreeda ka soconaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigreeda ee TPLF oo isugu jiraan maleeshiya beeleed, ciidamada New Booliska Tigreeda iyo ciidamo ka tirsanaa militariga Itoobiya oo qowmiyadda ay ka soo jeedaan ee Tigreeda u goosteen. Inkastoo aan guulo rasmi ah dagaalka dhinacyada dagaalamaya aysan ka gaarin, ayaa waxaa haddana la soo warinayaa dhimashada in ka badan 1,000 qof oo shacab ah iyadoo sidoo kale la sheegay in dhaawacu aad uga badan yahay tiradaasi. Waxaa la sheegay in dhimashada dhinacyada dagaalamaya ay aad uga badan tahay shacabka lagu dul dagaalamayo, balse aan tiradooda si rasmi ah loo xaqiijin karin. Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa la wareegeen maanta magaaladii labaad oo ka tirsan dhulka Tigreeda ee Alamta oo 120 kiilomitir u jirta caasimadda Tigreeda ee Maqalla. Inkastoo aysan ka dhignayn in Tigreeda la jabiyay oo waxa ay gantaalo ku garaaceen magaalada Casmara ee dalka Eritrea iyo deegaano ka mid ah Amxaarada. Waxaa sidoo kale la soo warinayaa in ciidamada dowladda Eritrea ay soo galeen safafka hore ee dagaalka oo ay taageerayaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Itoobiya. Shacabka naftooda la baxsanaya ee dagaaladaasi ku barakacay ayaa la sheegay in ay ka badan yihiin 200 oo kun, balse in ka badan 25,000 oo ka mid ah tiradaasi oo qaxooti ah ay gaareen dalka Suudaan oo daris la ah dalka Itoobiya, gaar ahaan daris kala ah deegaanada waqooyi ee markaasi ay ku badan yihiin Tigreeda. Waxaa socda dadaallo lagu raadinayo in xabad joojin la gaaro oo ka soconaya dalka Uganda, balse ma cadda sida ay ku suurtagali doonto. Hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale hay'adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa soo warinaya tacadiyo ka dhan ah shacabka lagu dul dagaalamayo ee Tigreeda, kuwaas oo halkii ay naftooda ula baxsan lahaayeen sidoo kalena ku go'doonsan deegaanada markaasi lagu dul dagaalamayo. Hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa dalbanaya in xabad joojin la sameeyo oo dagaalka la joojiyo, iyagoo markaasi dalbanaya in shacabka go'doonsan ay gaarsiiyaan gargaar bini'aadanimo.